السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواذا جنالك تيتور حالنا كير آد ugu barataan markasta inaad ka dhageysataan casharada aadka muhiimka ah ee barashada daawooyinka farmakolojiga. Caawa waxaan ka bilaabaynaa daawada la dhaho aspirin. Aspirin maxaa la dhahaa? Aspirin waxaa la dhahaa sidoo kale waxaa loo yaqaanaa acetylsalicylic acid ayaa loo yaqaanaa aspirin. Aspirin waxaa loo isticmaalaa daawooyinka xanuunada kala duwan sida xanuunka sida qandhada sida bararka antiben iyo caabuqa. Xaaladaha kale ee loo isticmaalo aspirinka in lagu daaweeyo waxaa ka mid ah qandhada lafaha rheumatic fever, wadna xanuunka heart attack, dhiig xinjirowga blood clot. Daawadan aspirinta waxaa lagu yareeyaa khataraha ka dhasha qaybaha kala duwan ee kansarka. Dosage-ka caadiga ee laga qaadan karo daawadan, qiyaasta daawadan waxaa laga qaadan karaa waxay ku xiran tahay hadba xaaladda lagu daaweeyo, da'da iyo miisaanka qofka, waxaana laga qaataa garaamka kala duwan sida 60 miligram oo ah 60 mg iyo 75 miligram oo ah 75 miligram iyo 300 mg oo ah 300 miligram iyo 325 mg oo ah 325 miligram. Side effect-ga ee leedahay dhibaatooyinka laga dhaxlo aspirin waxaa ka mid ah gas calooleed, gastrointestinal ulceration, calool xanuun, abdominal pain, dhiig calooleed, stomach bleeding, madax xanuun, headache, nabro, rash. Contraindication. Daawadan marka aad qaadanayso wadna xanuun ka fogow isticmaalka daawada ibuprofen la dhahayo. Aspirin marka aad qaadanayso wadna xanuun waa in aad iska ilowdaa inaad qaadato ibuprofen sababtoo ibuprofen aad buu u dhib badan yahay. Waa in aad iska ilowdaa ibuprofen haddii aad qabto wadna xanuun sababtoo ah daawada aspirinka waxay aad u burburisaa dhiigga xinjirowga ee wadnaha soo gala. Haddii laga maarmi waayo xilliga uu uurka jiro si loo hortago xinjireynta dhiigga waxaa la yareeyaa xaddiga qiyaasta daawada, tusaale ahaan waxaa la siiyaa 60 miligram. Qof kasta uu cashirkan soo gaaro ha shar gareeyo. Wabilaahi tawfiiq. aad baad u mahadsantihiin. hanaga ilaawinaha like, share, comment and subscribe-ka. Haddii aad subscribe saarto waxaad helaysaa muuqaalada aan soo gelino ee ku saabsan farmakolojiga, barashada daawada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.